magaalada Buuhoodle waxaa maanta lagu soo dhaweeyay Garaad Cusub waraaba dheere oo isagu safar uga soo kacay wadanka dibadiisa dhawaana lagu wado in lagu caalamo saaro deegaanka Buuhoodle deegaanka Bayaal ee gobolka Cayn Garaadka ayaa waxa uu socod ku soo maray deegaanada Yeyle Ceegaag Hurufadhi soo joogtay deegaano badan ku tirsan Buuhoodle waxaana Garaadka markii dambe loo soo galbiyay magaalada Buuhoodle Garaadka iyo dhowaan deegaanadaasi kulamo la yeeshay waxaana uu kula dardaarmay ka shaqeeyo nabadgelyada horumarka deegaankaasi ugu dambeyntii waxaa noogu yimi Garaad Garaad Cusub waraaba dheere annagoo degmada reer Ceegaag si diiran oo boqolkiiba boqol ayaan ugu faraxsanahay ibaantikiisa waa Garaad Cusub waraaba dheere baan soo dhaweeyay maanta annagoo degmada Ceegaag dadweynaha reer Ceegaag ee isugu jira garadka reer Ceegaag ilaahay inuu raxmad khayr qabo u shubo ilaahay inuu barwaaqeeyo ilaahay inuu nabadgelyo ku irsaaqo inta ka bacdi insha Allah ta'ala wa xafladatan sharafta le iyo takale ee aynu hadalna ku soconaba waanu kugu garabtaa xilkaanu dhibnay ilaahay ha ku taageero ilaahay ha u sakhiro garaad soo dhawow dadku waa dadkaagii dadweynaha reer Hurufadhi ee sharafta iyo qiimaha badan waxaad ku wada noolaan kartaan isfaham waxaan idin dardaarmayaa in aad isfahamtaan wada tashataan wixii dhib jira isku tanaasushaan tashku kama dhaco tabaalaha yeelanino caafimaada tabin allah tarantaada todobatan wiilka yeel allah cadawgaaga caamiya indhala ka yeel allah cadawgaaga ciilo cidhiidhi geli halkani waa magaalada soo joogto waxaanu ku soo dhaweynaynaa Garaad Ismaaciil waraaba dheere halkani waa soo joogto dhalinyarada waayeen rag iyo dumar waxaanu ku soo dhaweynaynaa garaadkii jira faraha badan ee sharafta mudan sida nagu soo dhaweeyeen deegaankeenna Buuhoodle ee gobolka Cayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr iyo barako siiyo amiin garaad amiin waxaa muuqata inaad waqti dheer taagnaydeen meeshan qorraxda ah xilligoo aad u kulul dartii iswaraysyadu waa dhiman yihiin culamada waxgaradka ogaasha iyo isimadu way noo dhiman yihiin iyo culamaadiinka iyo aqoonyahanku waxaan aad iyo aad ka qabaad maskaxa idinka mahadcelinaynaa soo dhaweyntiinna aad u qiimaha badan waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay ummadda warka inoo furo إلهي إنه بركات كل الناس صاروا إلهي إنه نبت بزاقه إلهي إنه نبت بزاقه إلهي إنه خير عدو إنه إنه نقبته إلهي إنه جبت لحظنا إنه يقعده إلهي إنه ولا تصير إسلام حوله إنه يقارك إنه قلنا مليون magaalada Buuhoodle dadweynaha waxa kaga noqotay magaalo ay ka jirto haday jirto waxa lagu magacaabo dimuqraadiyadda ama isfahamka iyo wada tashiga iyadoo sida siyaasadkiisu kala duwan yihiin dawladihiin iyo nidaamadihiin u badan yihiin ayaa hadana wax khilaaf ka dhicin gobolka Cayn ee magaalada Buuhoodle ugu dambeyntiina soo dhaweynta loo sameeyay Garaad Cusub waraaba dheere lagu sameeyay deegaanka yahay mid aad u balaaran waxaana lagu wada garaadka in waa lagu caalamo saaro Buuhoodle waa la cusubna dhaktar wararka telefishinka caalamiga Ismail News magaalada Buuhoodle